qurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn ismaqal arag wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga mawaadiic ku saabsan sharciga ayaan kolba tabinadeena ku faahfaahinaa toddobaadka iyo barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay diinta iyo sharciga diinta iyo qaanuunka sidee ayay isula jaanqaadi karaan aasaaska diimeed ee nidaamka sharciga Soomaaliya fahamka cadaaladda iyo faldambiyeedka ee qaanuunka casriga ah iyo shareecada martida barnaamijka waa Sheekh Cabdilxayi Sheekh Aadan haddaba dhageysta ku soo biir wada hadalka oo soo dhiiba aragti iyo su'aal wixii kaaga baxa mawduuca adiga oo naga soo wici kara eber 69 62 24 eber 3 barnaamijku wuxuu raadraac marjac iyo awoodsiin u noqonayaa bulshada Soomaaliyeed ee sharciga u ooman iyo ardayda barta culumta sharciga ujeedku wuxuu yahay in kor loo qaado aqoonta sharciga ee bulshadeena su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dhib ma kala kulanta helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama lagala taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho barnaamijyadii hore waxaan ku faahfaahinay ciwaano sharciyeed oo kala duwan baahintan waxaan ku saaminaynaa diinta iyo qaanuunka sida aad maqasheen waxaa marti inagu ah Sheekh Cabdilxayi Sheekh Aadan oo hadda stuudiyaha nagula sugan Sheekh Cabdilxayi soo dhow ciwaankan ayaan falanqeyn doonaa dhageystayaasha sidoo kale waxaan xasuusinayaa kuwa doonaya inay ka qayb galaan in barnaamijka ay soo wici karaan iyagoo lambarkan fariin ku soo diraya ama toos u soo wacaya eber 6 19 62 24 eber 3 waxaan u guda galaynaa weydiimaheena ugu horeeya Sheekh Cabdilxayi mar kale waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga ugu horeyn muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya diinta iyo qaanuunka hadii aad dhageystayaasha u ifiso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والمحسن تهي واسد u sheegtay ummadana Soomaalidu runtii waxay baahi weyn u qabaan sharci inay ilaaliyaan duruufahooda la soo gudboonaadana inay sharciga ay ku xalistaan ummadda ay isu timaado ummadna ma kala maaranto inay isu imaadaan waa laga maarmaan maxay yeelay meel ay wada degan yihiin dana ayaa ka dhaxeeya bini aadamka sidiisana waxa ku abuuran waxyaabo la yiraahdo anaaniya iyo asaga inuu wax isla rabo waxa dhici karta mararka qaarkood wax qof kale uu haysto ama gacantiisa ku jira inuu qof kale uu hunguriyeeyo ama ay baahi u qabato isla markaasna naftiisu iyo shaydaan ay ku qalqaaliyaan inuu qofkaas ku xadgudbo oo waxa uu haysto uu ka qaato asoo u maraayo wasiilooyin ama wadooyin aan sax ahayn oo ay ka mid tahay midalan qofkii inuu ama dilo si uga qaato waxa uu rabo inuu ku xadgudubyo badan uu sameeyo marka waa in loo helo dadka wax yani dadka noocaas oo kala ah lagu xakameeyo ama lagu celiyo shariicada islaamku waxay u imaatay dadka noloshooda inay u qaabayso xadgudubyada dhacayana inay ka celiso ilaahay ma jeclo in isku xadgudbo saasa ilaahay wuxuu leeyahay wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin marka sharciga iyo qaanuunka markii la yiraahdo oo kulliyadaha jaamacadda kulliyad gaar ah jirto oo lagu barto oo kulliyatu shariica wal qaanuun la yiraahdo waxa loo yeelay waxay tahay ardayda shariicadii islaamkana in la baro shariicadu mabaadi'da ay sheegayso ku saabsan xalaasha iyo xaaraanta iyo wixii la rumaynayo caqiidooyinka iyo arrimahaas oo dhan in asalka uu sidaas uu yahay waxaa jira waxyaabo nolosha yani maareynteeda qaab ka mid ah oo la yiraahdo lawaax idaariya ama hab maamuleed dadku waxyaabaha markaas yoomiyaadkooda ah ay yani ay isku xaliyaan taas oo ayna ka baxaynin idaarka guud shariicada islaamka ay u xadiday marka mabaadi'na islaamka ayaa u ah mabaadi'daas fulinteeda talaabooyinka loo maraayana waxna waa la sheegay waxyaabana dadka looga tagay inay ayagu inta ijtihaadaan ay noloshooda ay ku maareystaan marka la yiraahdo mesela shariicada iyo qaanuunka xiriir ka dhaxay wuxuu yahay inaga muslim ayaan nahay waxa waajib inagu ah arkaanta iimaankana kamid ah
an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi yani inaad ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rumayso iyo kutubtiisa kutubta ilaahay uu samaawaad ka soo dejiyay oo al-kutub as-samaawiya la yiraahdo waxa ugu dambeeyay kitaabkan quraanka ah ayaa ah midka ay tahay bin aadamka oo dhan inay ku dhaqmaan oo ay raacaan tilmaamaha uu tilmaamayo ilaahay wuxuu leeyahay ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun yani raaca wuxuu ilaahay idin soo dejiyay oo noloshooda dadku si ay u maareysan lahaayeen sukadiisana waxyaabo kale ha samaysanina in yar ayaad waansamaysaan inaad waansantaan ayaa idin fiican qofka mu'minka ah ee arkaan iimaanka rumaysan kitaabka waxa uu rumaysan yahay waxa kamid ah kitaabku inuu qofka yani hagaayo oo uu ka celinayo xumaatada sharcigana uu ku qabanayo oo wixii sharci darra ah inuu ka celinayo saasa ilaahay wuxuu leeyahay wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yani qof mu'min ah ama rakaada ama dumar ahaade ilaahay rasuulkiisa wixii ay xukumaan kala doorasho male oo asaga hawadiisa inuu ka baarbaadho oo uu yiraahdo kan yani hawadaydu waafaqsan yahay oo wax aan rabo waan qaadanayaa kana yani sida uu quraanku u sheegay hawadaydu khilaafsan yahay saas daraadeed ma qaadanayo qof mu'min ah asaga saas ma arrinkiisu hadalka qofka mu'minka wuxuu yahay inma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يدع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون يعني قدرك المؤمنين تقول كذا إلهي رسول كيس شرع وضع مرك الله يرى ورك الله أفر المجرى إلا إن دهن موجي وأن أقولاني وركاس وأن قاضنا رسولك إلهي نساسا قاضي يعني الله أوقع بصدق كواس وكل لباني مرك الشرع هذا أم شرعه بيسك أساس كهذا إنه ضدك أن أفع فاهنه أمرهنه وحلا إسكر رباي واسداس meel aan uga leexanayno ama aan ka dooran karno ma jirto hadii aynu mu'miniin nahay maxaa yeelay ilaahay baa dhaartay oo ku dhaartay xuuri falaa wa rabbika laa yu'minuuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman oo macnaheedu yahay aayadaasi rabbi asaga isku dhaartay inayna iimaan lahayn ilaa ay rasuulka ay xaakim ka dhigtaan oo wixii aad ku xukuntaan ay si raali ah ay ku noqdaan oo yani shariicada qofka markii ay qabato oo gardarro uu ku socday laga celiyo oo yiraahdo sharcigu saas ma ahna ka joog waxa la rabaa qofkii yani inuu naftiisa uu xakameeyo oo uu arko in asaga loo daneeyay maxaa yeelay ka joojinta laga joojinayo xaq darrada iyo xadgudubka asaga ay adduun iyo aakhiraba dan u tahay qofka adduunkana naftiisa ay u badbaadaysa oo in ama asaga yani la qisaaso ama la xiro ama yani ayuu naftiisa ka badbaadinaya markii asagu uu sharciga ilaaliyo oo san dadka ku xadgudbin آخرنا يعني قف سوه جان سمي وأمر كله قاطع يون قنايا مركا يعني ساسة ذلك مؤمنين تاع أنت وضع شرع وأيو قاذنا يعني أي أوتها مركا حاجة قانون كدين صوغ إنه مثلا شريعة جرني إن ساس واجب تاع إن الله راعه نلاش الوقع بيه قانونكم حويه مركا قانونكم حويه هاي ومن التقنين أو ووحي يعني قفك يعني قضبه يعني أما شروطه أما إرايو ساس هلا يلا ده kuwaas ayaga amarka markii yani dadka bini aadamka ah ee meel isugu imaadaan waxa jira waxyaabo noloshooda tafaasiil hoose ah oo habka midna hadii shaqo la qoraayo wasaaradaha kamid ah hab raaca ay shaqada u qoranayso midna oo qofku waa inuu jaamici ahaado waa inuu khibrad 5 sano haysto waa inuu amaana inuu leeyahay waa inuu karti leeyahay saasa marka hore loo sameeynaya dadka marka soo doonanay shaqadaasi habraacaas ayaa lagu qaabeynaya intaasna waxa looga dan leeyahay si ayna arintu u noqonin si yani aana ah ama qof jeclaysi ah oo qofkii midna dawladii iyo nidaamkii dadka ka dhaxeeyay shaqo u raadsashadoodu ayna u noqonin dad qofka oo markaas mas'uulka meesha ka uu rabana inuu iska qaato dadkii kale oo meesha mas'uuluna u joogina meel ay u soo maraan in uu weyn oo bulshadii marka halkaas cuqdad iyo isnacayb uu ka yimaado si ayna taa u dhicin ayaa waxa loo sameeyaa marka habraacaas marka qaanunka loola jeeda oo ah yani habka hadii shaqo la bixinay saas tusaalaan oo kale midna hadii midna ugaar iyo waxyaabo ku saabsan la rabo in la soo ugaarsado si yani deegaankii iyo noolihii dadku ay ku noolaayeen aan loo dabar jarin yani maxaa la ogol yahay in la ugaarsado oo midna yani la nidaamsado hadii dadku intay ku wada yaacaan kaynti wixii duurjoog ku jiro dhan ay dhameeyaan yani waxa gudubtaas iyada ah waxa rabaa hadbad markaas baahi qofka haduu wax u qabo in yani muayyan oo loo ogol yahay badii haday noqoto midna kalluumaysiga intee baa laga ogol yahay in laga kalluumaysto
qalabkeebaa la isticmaalayaa مثلا xoolaha aynu dhoofinayno Soomaaliya hadaan yani maxaa loo ogolyahay in la dhoofiyo dhadiga miyaa la dhoofinaya kuwa yaryar miyaa la dhoofinaya yani waxyaabaha noocaas oo kale ah yani maamulka ku saabsan habkii dadku yani intii loogu sameeyo ay noloshoodaasi ay ku qurux badnaan lahayd oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri antum a'lamu bi umuri dunyaakum idinka ayaa taqaanin arrimaha adduunyadiina sida aad u qaabaysanaysaan midaas ayada ah ayaa qaanuunkii lagu habeeyaa oo dadku si ay yani nidaam u yeeshaan ayaa saas loogu sameeyaa marka sharciga oo islaamka ah oo shariicada islaamka ahna waa waajib qof kasta oo mu'min ah kitaabkaas quraanka ilaahay wuxuu soo dejiyay dadku inay xumaatada iskaga daayaan mugdiga ay kaga baxaan iftiinka inay u baxaan kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrij an-naasa min adh-dhulumaati ila an-nuur kitaabkaas wuxuu noo tilmaamayaa marka waxyaabaha ay nolosheenu ku fiicnaanayso yani inaan habaysano oo amruhum shura baynahum ilaahay wuxuu arinta dadku way ka tashanayaan wa amruhum shura baynahum taas yani habka loo tashanayo iyo qaabka waxa looga tagay dadka iyo maslaxada markaas waxay u arkaan maxay yeelay dadku marna way badanayaan mar danahooda ayaa kala duwanaanaya marka waxa waxaa la siiyay ay ku dhaqdhaqaaqayaan oo ah kuwa mesela maanta jooga duruufta maanta haysata wixii ay ku qaabaysan lahaayeen oo danahooda ay ku xaqiijisan lahaayeen kuwa bari imaan doona duruuftii maanta joogtay intay isbedesho bari duruuf kale oo cusub ayaa imaanaysa duruuftaas imaanaysana wax kale oo kii shalay ka duwan saasa culimada fiqhiga aad arkaysaan aqwaal hore iyo aqwaal dambe loo leeyahay alqawl alqadiim walqawl aljadiid marka waa noocaas arimaha oo yani aan marna ka dhaxbaxaynin yani shariicada iyo diintii dadka marka waxyaabo badan waxaa jira dadku uu qofku iska jecel yahay inuu ku xaqiijisto danta asaga uu leeyahay wax kale oo lagu celin kara marka ma jirto qofkaas wax dadku ay isla og yihiin oo shariicadii ah in lagu qabto oo la yiraahdo adiga joog waxaad ku socoto wax sax ma aha oo wax la isla og yahay ay tahay saasay noloshu ay ku qaabaysmaysaa inay ku fiican tahay marka xiriirkaas ayaa jira oo ah shariicadii oo ah habnololeedka ummadda islaamka ilaahay uu soo dejiyay oo ay waajib tahay inay raacaan iyo qaanuunka oo ah laaixooyinka ama xeerarka yani hab dhaqanka dadka oo waxyaabaha yawmiyaadkooda ku saabsan ay ku qaabaysanayaan in yani dadka ahlul xalli wal aqdiga la yiraahdo ama dadka ijtihaadka u saaxiibka ama ra'yiga u saaxiibka ee danaha ummadda haaya in intay wadankii masiirkiisa ummadda horumarkeeda intay isaga imaadaan habka loo sameynayana ama ha ahaado hab yani hogaamiyaasha qabaa'ilka la dhaho ama hal yiraahdo culimada hal yiraahdo ama hal yiraahdo ganacsatada hal yiraahdo ama hal yiraahdo dadka mesela magaalada indheer garadka oo dadku ay u soo joogsanayaan adi dadka danahooda dadka u taagan dadkaas inay marka dadka hogaamiyaan oo shariicada islaamkana ay ku dhaqmaan qaanuunka ay markaas noloshooda ku qaabaysanayaan oo ay ku nidaamsanayaan habka ay maalmahaas howlaha yani tilmaamayaan yawmiyaadkooda si u maamulan lahaayeen ay dadkaasi ay u tilmaamayaan saasay dan inoogu jirtaa saas aan yeelno dabcan dadka oo marka ahlu khayrka ana baadil iyo xumaan iskuma raacaan waxay isku raacaan mar walba meesha aqlabiyadu ay u badan tahay oo laga tashado hadii aad aragtid dad yani waxyaabo xun sameynaya waa wixii lagu heshiiyay guud ma ahe waa wax si gaar ah qof uu dantiisa rabo inuu wax xaqiijisto laakiin ummad haday mar isu imaato oo maxaa inoo dan la yiraahdo inta badan dadku waxa isla helaan waxa ummadda danka oo ah taasina ummaddu ay ku horumartaa oo ku guuleysataa marka xiriirkaas ayaa ka dhaxeeya sharciga iyo qaanuunka oo ah xeerarka hoosaadka oo ummaddu ay hadba habka markaas u taagan ama hawsha markaa u taagan ay ku qaabaysanayaan ilaha laga soo xigto ama laga soo cuskado marka qaanuun la sameynayo diintu booskay ka joogtaa diintu waa masdarka koobaad ama waa isha koobaad ee lagu dhaqmaayo adilada marka markii shariicada guud la yiraahdo ayaa waxa si ah kitaabka quraanka ah sunnada waxa jira al-ijmaa' waxa jira arrin yiraahdo al-qiyaas kadib waxa laga arimo kale oo la yiraahdo al-istihsaan iyo al-masalih al-mursala iyo sharc man qablana iyo qowl as-sahabi iyo amal al-madina iyo sadd ad-dara'i' yani masaadir at-tashriic oo noocaas oo kulliyada shariicada lagu barto ayaa jirta marka markii la sameeynayo nololeedkan ku saabsan sideen shaqo dadka loo siiya loo qortaa sidee mesela loo kaluumaystaa sidee jinsiyada loo xadidaa sida arimahaas oo kale wixii laga sameeynayo yani waxa meela laga fiiriyo kamid ah curfiga ama dhaqanka dadka oo dhaqanka dadka maadaama ay la qabsadeen dhaqanku wuxuu noqon karaa mid wanaagsan oo bulshada anfacaya iyo mid xun oo bulshada haleynaya diintu waxay ogolaatay ka fiican hirgalay dadka dhaqankooda ah
oo alcurfu saxiixa la yidhaahdo in dadku ay qaataan oo dhaqankooda yani ay ku socdaan. saas xadiidku nabi sal slam wuxuu leeyahay inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. utamima waad arkaysaan yani inaan dhammaystiro. dhammaystir macnaheed muxuu yahay waxbaa bilaaban wuxuu usii baahan yahay marka in la sii wado oo lasii dhammaystiro. diintu markay imaatay waxaa ka mid ah tusaalahaan curfiga wax lagu dhisay carabtu islayn jireen islaamka ka hor geelna way jeclaayeen wayna kala dhici jireen geelow malaha sida Soomaalida oo kale ah. waxay dhaqan ka dhigteen marka si ay u kala badbaadaan xoolahan ay jecel yihiin ee geela ah qofkii wax dila si u xanuunsado oo uu dadka u daayo uusan u dilin in 100 neef xoolihiisa laga soo bixiyo oo qofkii dadkii wax laga dilay la siiyo 100 neef oo diyada ah ayaa sidaas u ahaan jirtay. islaamku markuu imaaday maadaama ay tahay arin ay dhaqan u ahayd oo ay ku kala joogeen oo ay ku soo badbaadeen islaamku markuu imaaday geelina sidii ay u jecel yihiin dabeecadooda ilaahay u yaqaan dadka yani 100kii ay horay u yaqaaneen kii uma hadana la yiri kan sii wato oo 100 wax waa lagu dari karay oo 150 waa laga dhigi karay wax waa laga dhimi karay waa asaas. laakiin hadana maadaama ayagu ay saa ka sii dhigteen waa inta uu ahayd una hirgashay taas waxa yani ku socda. marka yani dhaqan waxa kamid mesela ilaahas marka oo laga qaadanayo curfiga iyo dhaqanka dadku ay leeyihiin ee ah midka wanaagsan ee horumarka keenaya. midka xun waa la joojinaya oo midka xun waxa kamid aha gabdhaha ay duugi jireen ayaga oo nool weydal mawudatu su'ilat bi ay dambin qutilat aad ayaa loo fogay arrintaas iyada loogana hor imaaday. marka dhaqan kasta oo bulshada xumaan ku ahna kuma jiro oo waxyaabo la baabin ayuu kamid yahay. dhaqan kasta oo umada sharaf iyo qiimo iyo wanaag ay hore u kasbatay oo ay taqaano ay la qabsatay ahna diintu way dhiiri gelinaysaa oo calaf saxiix ay leedahay oo diinta aan khilaafayn ilaahas ayuu kamid yahay. marka qaanuunka ilaah laga qaadanayo qayb kamid ah ayaa waxa kamid ah dhaqankaas kamid ah islaamka iyo shariicadana ayadu waa lambarkow oo yani qaybahaas kala duwan ayaduna ay leedahay oo curfiga uu kamid yahay iyo dadkii hore yani waxyaabihii laga soo gaaray ay kamid yihiin iyo yani waxyaabaha tashriica lagu sheego ay kamid yihiin ayaa laga soo qaataa. saasa marka bulshada loogu habeeyaa habkay u noolaan lahayd. sheekh Cabdixayi diinta iyo qaanuunka hadii la kala qaado ama hawlo gaar ah lagu kala saleeyo bal ka waran waxa la sameeyaa mesela diintu waa taan sheegnay oo waa shaamilkaas oo ilaahay ina amray inaan kulli wada qaadano yaa ayyuhalladina aamanu idkhulu fi silmi kaafatan islaamka oo dhan in la wada galo oo aan la kala qaadin hadii kale waxa qabanaysa reeban islaatiga ku dhacday oo qaarna ay ogolaadeen qaarna ay diideen afatu'minun ba'da kitaab wa takfuruna bi ba'd. marka taasi waa midaas qaanuunka aan tilmaamaynay ee ahaa sideeba nolosheena yani hoose oo yoomiyaadka ah aan u habaysanaa noocaas ku saabsan طبعا waxa shardi u ah inuusan khilaafsanayn mabaadi'da guud shariicada islaamka ay u imaatay oo uu noqdo mid yani u khidmaynaya dantii guud ee loo socday ummadda horumarkeeda oo ahaa. hadii laakiin uu khilaafo oo sida mesela meelaha qaarkood yani wax shariicadii ay shaqo ku lahayn oo kale la keensado oo la yiraahdo kana qaanuun aan ka dhiganayna oo ah in ilaahay wax uu xaaraantinimeeyay يعني dad ay rabaan inay xalaaleeyaan sida مثلا bangiyadu si u shaqeeyaan oo مثلا ribada oo kale oo leeyahay bangigan wuxuu la shaqeystaa bangiyo kale oo aan islaam ahayn ribada ama lacagta dulsaarka la yiraahdana bangiyadaasna way bixinayaan bangigan waa inuu bixiyo taasi lama ogolo oo qaanuun yani dad muslim ah ay yani ay ku dhaqmi karaan ama ay qaadan karaan ma aha. maxay ilaahay baa xarimay ribada wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. khamrada ilaahay baa xaaraantinimeeyay hadii la qaanuun khamrada banaynaya ama in la cabo yani dhiiri gelinaya la keenaya lama yeeli karo maxay dadka muslimka ah khamradu xaraan ayay ka tahay. haday jiraan ummado kale oo ay xaraan ka ahayn oo ayagu iska isticmaala qaanuunkoodii ayagu ay haysteen oo banaynay looma soo qaadi karo looma soo rari karo dad muslim ah. yani tabcan wixii ku saabsan at-tahliil wa at-tahriim wax loo dhawaan karo ma aha waa inuu sidoo ilaahay wax u xalaaleeyay xalaal u ahaadaan سو إلهي وحو حارانتنيميين أي حاران وهذان وإلهي وحو ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عاد إلهي وحو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وحيرهم كوا أجدية وحي عن إلهي أوسن إدمن أو يعني شرعي خلاف سن مركا تاسع مركا دتك دب رئيسة وعليسة أو يعني قانون كستا أو خلاف سن شريعة يعني ضد مسلم إن لو دقو يعني ما بنانو وانا wax kama jiraan taas laga soo qaadaya dadka muslimka ah waa shariicada ummadna Soomaalida waa ummad muslim ah shariicadana way jecel yihiin laakiin waxay u baahan yihiin
habkii loogu dhaqi lahaa iyo dadkii ku dhaqi lahaa ee aamini lahaayeen oo diintan yani yaqaana oo ku camal falaya oo sida ay tahay u hirgelinaya in loo helo. marka yani diinta ayaa hagaysa habnooleedka dadka muslimiinta ah wixii ayada waafaqsan oo sharci ah oo yani nidaamkii hab loo noolaan lahaa oo waxyaabaha yowmiyaadka lagu xalisan lahaana waa dhib male, laakiin wixii khilaafsan oo kasoo horjeeda yani taasi ma banaano. sida ayay iskula jaan qaadi karaan diinta iyo qaanuunka? sida hadda aan tilmaamaynay oo ah qaanuunku waa system ama waa xeerar nolosha waxyaabaha tafaasiisha ah maalan tii hadda aan tilmaamaynay oo kale ah lagu maaraynayo. shareecaduna waa mabaadi'da iyo dadku waxa ay xalaal iyo xaaraan u qaadanayaan, caqiido waxay rumaynayaan, amar qaadashada oo ilaahay subxana watacaala in laga amar qaata maxaa yeele isaga ayaa abuuray dadka iyo dhulka iyo samaawaadka, alaa lahu lkhalqu waalamru in alxukmu ila lilahi amara anlaa tacbuduu ilaa iyaahu dalika diinu lqayim. marka haddii qofku uu u fiiriyo ama nidaamkan la samaynayo ijtihaadka ah oo sida maalan fiqhi islaamiga ah waa istimbaadaad ayaa la yidhaahdaa oo ah dadka waxyaabo looga soo dhexbixiyey aayaddii ama xadiidkii oo fahamka loogu soo dhaweynayo sidaas uu qaanuun u yahay. taasi dhib male oo saasay noqon kartaa sida isla soconayaan. laakiin haddii bilcagsi isku noqdaan oo sharcigina uu arrin sheegayo oo shareecadii ay si sheegayso, qaanuun dad ay sameeyeen oo wadci ahna si kale uu sheegayo, sidan kale ee uu sheegayo wax kama jiraan ayaa laga soo qaadaya. maxaa yeelay dadka muslimka ah sharcigooda waa shareecada islaamka, habka ay u hirgashanayaanna intay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan yani habkay u hirgelin lahaayeen iyo dadkii ku xukumi lahaa inay doortaan oo ay hoggaan samaystaan. maxaa yeele hoggaan la-aan wax la hirgelin karo ma ay jirto. marka in dadkao dhan muslimiinta waxaa la rabaa qof walba inuu meeshiisa uu shareecada ka difaaco, meeshiisa inuu ka ilaaliyo, naftiisa inuu iska bilaabo oo horta asaga uu shareecadii isku dabaqo aan loo fahmin shareecadu inay tahay wax dadka ka baxsan oo habdowladeed inay dadka ku xukunto ay tahay. qofku inuu fahmo ayaa la rabaa asaga inay ka bilaabanayso hirgelinta. taasna alxamdulilahi way naga muuqataayo ummadeenna burburkii ku dhacay habdowladeedkeenna iyo baabii ummaddan soo gaaray wax badan waxaa lagu badbaaday dadka wanaagsan ee ahlu khayrka ah wacyigelintooda oo ay u sheegayaan war qof walba sharciga ilaahay adiga naftaada ku xakamee oo wixii xaaraan ka ah oo ay ka mid tahay maalan xoolaha dadka in la dhaco, naftooda in la gooyo, waxyaabahaas oo dhan yani dad badan waxay isaga daynayeen waa xaaraan oo ilaahay ma ogolo. inta fafakatay ayagu xadgudub sameeyeyna dadku way yaqaanaan oo way ka takooran yihiinoo kuwaan diinta kuma socdaan ayaa la leeyahay oo sharciga ayay khilaafsan yihiin. marka waa haakada. marka shareecadu waa habnooleedka dadka lana rabo qof walba asaga inuu iska bilaabo yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum. qof walba naftaada ayaa lagaa raba ayaa layi intii saas la sameeyo oo qof walba dhinaciisa uu shareecadii kaga dhaqmo yani kadib bulsho waxaa soo baxaysa dad wanaagsan oo sharcigii ku wada dhaqa oo maamul u noqda inuu meeshii ay ka soo baxaan. marka arrintaasi ayada si ay u hirgeli lahayd waa arrin u baahan in aada iyo aad yani wacyigelin looga sameeyo, lagana wada tashado ahmiyadda ay leedahay wadajirka iyo in ummadda ay jiritaan ay yeelato, jiritaankaas oo u suurtagelinaya inay hirgeliyaan sharciga ilaahay nolol fiican oo sharaf lena inay ku noolaadaan in la iska kaashado ayaa loo baahan yahay. waa sidee aas-aaska diimeed ee qaanuunka Soomaaliya? طبعا taariikhda markii lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed isticmaalkii ka hor intaan uu isticmaalka waddankeena uu soo gelin waxay ahaayeen dad iska degan meelo wixii ay yani ay qabsanayaan ama xukunka ay sameysanayaanna dadka odayaashooda ah kaaba qabiiladooda iyo culimadooda ayaa usha u hayay oo kala xukumayay. waxay ku kala xukumayeen kitaabkaas ayay usoo bandhigayeen masalan diintu maxay ka qabtaa, sidaas ayay kusoo socdeen. isticmaalku markuu imaaday wuxuu la yimid qaanuunkiisii asaga uu watay. markii ummadda Soomaaliyeed ay ka hor imaatay isticmaalka oo ay iska xoreeyeenna macal asaf waxaa dhacday wuu baxay isticmaalkii, laakiin bedelkii uu dadka yani faraha looga qaadi lahaa caqiidadooda iyo diintooda iyo iimaankooda inay noloshoodana ay isku xukumaan tii ma suurtagelin oo qaanuunkii yani ummadaha kale ay lahaayeen ayaa ummaddii looga tegay. dadkuna baraarug fiicanna ma jirin,
dadkii waxoogaa wax tilmaamayna dadka qaarkii ayaa ka hor imaaday oo yidhaahdeen dowladnimadka dadkii aan ka dhaxalnay ayaa weli gacanta nagu sii haya oo mushaaraadka bixiya saas daraaddeed qaanuunkoodii ayaan kusii soconaynaa laakiin marxaladahan dambe markii arrimahan dadka yacni waxbarashada badan ay faaftay dadka wacyigelin badan ay sameeyeen dadka dhan waxaa galay dareen ah yacni sharciga islaamka oo dadkan ay muslimiin ay ku yihiin habdowladeed u maamula in loo helo inay lagama maarmaan tahay saas daraaddeeda yacni hadda waxaa jira tilmaamooyin soomaalida hadda u yaalla oo ah yacni qaanuun kasta oo shareecada islaamka khilaafsan waa wax kama jiraan kaasi marka ma jirin maalan 60kii oo kale kaas ma jirin oo saas lama dhahaynin laakiin heer waxaa lasoo gaaray ah baraarug dadkoo dhan wada gaaray oo ah ummadaani maadaama ay muslim tahay qofka caqiidada uu rumaysan yahay ayaa hagaysa waana dhibaatooyin badan oo yacni haddii shareecada laga fogeeyo qofkan intuu ku dhaco yacni ilaalin badan u baahnaan lahayd ayaa haddii qofka shareecada uu rumaysan yahay loo daayo ayuuna ilaalin badan uusan u baahnayn taas maalan waa tani ku kala duwan yihiin shareecada iyo qaanuunka wadciga ah maalan qaanuunka wadciga ah riqaabadiisa ama ilaalintiisa waxaa sameeya booliska iyo ciidamada oo qofkii markuu sameeyo mukhaalafo waa la qabtaa oo waa la ganaaxaa haddii markaas uu ujeedo dad ilaalinaya qaanuunkii qofka waxaa laga yaabaa inuu is ilaaliyo oo yidhahdo yaan lagu ganaaxin laakiin haddii ishu ay yacni kasii jeesato ma rumaysno inuu ku dambaabayo arrintan iyada ah waana inuu yacni uu fahmo yacni adiga wixii kuudan ah ilaashada adaa lagaa rabaa laakiin shareecada islaamka markay noqoto qofkani in la ilaalinayo oo askari fiirinayo muhiimaddu taa uma aha waxaa muhiim u ah sidii gabadhii maalan sayidina cumar xilligiisii hooyadeed ay ku tiri caanaha iyo biyaha inoogu isku dar si ay inoogu bataan oo ay gabadhu ku tiri sayid cumar wuu diiday in la isku daro caanaha iyo biyaha oo qish ayaa la yidhahdaa inaga daa waxay tiri ma asaga noo jeeda hadda cumar waxay tiri hadduusan cumar noo jeedin rabbiga cumar ayaa noo jeeda marka shareecada islaamka dadka damiirkooda ay ku jirtaa waa caqiide ay rumaysan yihiin marka si la isu waafajin lahaa caqiidada dadka oo islaamnimada ah iyo habnololeedkan yani jidka sida loo maraayo iyo xaggee laga maraayaa iyo see shaqa loo qoraaya iyo ku saabsan in la isu waafajiyo waxay u baahan tahay marka la yidhaahdo islaamkaas ayaa ina hagaaya qofkii marka uu arko sharcigan meesha yaalla haddii uu khilaafo inuu ku dambaabayo oo dabcan haddaynu wax ku heshiino waxa aynu ku heshiina ayaa sharci inoo noqonayo tusaalahaan maalan wadda haddaynu marayno oo baabuurta ay tahay haddii midig iyo bidix loo kala asteeyo oo ciidamada taraafikadu ay dhahaan midig iyo bidix kuwa xagga ka imaan iyo kuwa xagga ka imaan ha kala mareen taasi haddii qof intuu kasoo leexdo meeshiisii meel aan ahayn uu maro hadhow haddii la ganaaxo ama la qabto ma dhahayo ani maxaa la ii qabto lacag la iiga qaaday waxaa saas loo yeelayaa wax dadku ay ku heshiiyeen si dhibaato looga hortago oo shilal ayna u dhicin wasulxu jaa-izun bayna almuslimiin muslimiintuna wax way ku heshiin karaan almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu waa waxay shardi ka dhigtaan yani sidaas inay noqoto marka qaanuunka soomaaliya hadda wuxuu taagan yahay inkastoo burbur iyo weli yani inuusan sal dhigto oo dadku ay intay jiritaan fiican yeeshaan oo yani xukunkii uu wada hirgalo oo yani ummaddii ay noqoto ummad hogaan yani ka wada dambaysa oo adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulamri minkum oo isla ogolya aynan helin oo burbur iyo wax isku kakab ay tahay oo ilaa hadda un la taagan yahay qabyo qoraal iyo wixii aan dhammaystirnayn haddana yani waxaa loo baahanya mar walba in maanka lagu haayo ummaddan soomaalida waa ummad muslim ah waxa ay ku qaboobayso ama ay ku degaysana waa in sharciga islaamka oo ay aaminsan yihiin ay noqoto dowladdu midda ay ku shaqaynayso ummadoo dhanna ay isugu wada tagaan inay isla wada qaadaan islana hirgeliyaan maxaa yeele kitaabka qur-aanka iyo shareecadu ayagoo iska socdo iska lugaynayo oo ishirgelinaya lama helaayo dad hirgeliya ayaa loo baahan yahay dadka hirgelinayana qofkii rumaysan ayaa hirgelin kara qof aan rumaysnayn ma hirgelin karo marka saas daraaddeed maadaama ummadeennu ay qur-aanka jecel yihiin shareecadu saanay qabta hadday la yidhaahdo yani ay usoo joogsanayaan kii un hawo iyo waxyaaba dana markaas haysato u fafakanaya ma ogi ay tahay yani in bays looga dhigo oo wixii dadkan lagu hagaayo ay noqoto caqiidadooda iyo diintooda iyo shareecadooda ayaa laga maarmaana marka sidaas hadda laisku ogyahayo wax kasta oo shareecada islaamka garab marsan oo qaanuun ah inaynu wax kama jiraan u yahay hirgelintii laakiin habkii loo hirgelin lahaa ayaa waxaa dhiman iswaafaqitaanka dadka iyo heshiiska dadka iyo dadku inay isla gartaan hadda qof la soo taagan oo leh haye sharciga ma ku dhaqanaa may ku dhaqmi mayno oo banaanka lasoo istaagaya male maxaa yeelay shacbiga soomaaliyeed ayaa shacbi kheyro badan oo diinta yani ilaalin badan ule ah oo diintii jecel
يعني weligeena saas ahaan jiray ilaa waqti isticmaalka yani hogaanka culimada iyo odayaasha dhaqanka ayay u ahaan jireen diinta wixii waafaqsan hadii leeyahay waa saasna way ogolaanayeen hadii yani wax diinta khilaafsan la yimaadana xilli ay ugu xoog badan tahay u xoog badan yihiin maamulada jira ayay ka hor imaanayeen sidii midna xeerkii qoyska oo dhaxalka wiilka iyo gabadha walaalaha bari midna soo saaray inay isku mid noqonayeen oo ahayd lidakar mithlu hadd al-unthayn meesha laga bixiyada yani iyadoo awood military oo xoog la jirto ayay haddana dadku diideen waxay dhamaan sharciga ilaahay baa sax ka baana qaadanayna saasa waxa la rabaa marka ummadda Soomaaliyeed yani qof walba inuu ku qanco inay saas arintu ay tahay maxay iimaanka ayaan dhameystirmaynin ilaa dadka yani waxa ay rumaysan yihiin iyo waxa ay ku dhaqmayaan la iswaafajiyo hadii laakiin la kala nooc noqdo oo salaadii masaajidkana ihdina as-siraat al-mustaqim siraat alladhina an'amta alayhim lagu soo akhrinayo banaanki markii loo soo baxo iyo maamul markii la yimaadana wax diinta shaqo aan ku lahayn hala sameeyo ama ha lagu dhaqmo leeyahdana tanaaqud iyo halkaas waxa ka imaanay isbaraambar aan sax ahayn noloshiina ma degayso istiqraarna ma yeelanayso si marka noloshu ay isla socoto noloshu waxay ku socotaa yani waa sida jirka bini aadamka kale isku dhinac in loo socodsiiyo oo wadiifada ama shaqada jirku mid walba meel ayuu ka hayaa luguhu waa mid kuwa lagu taagan yahay gacmaha waa kuwa wax lagu qabsado madaxa waa kuwa midna ay indhihii iyo dhagihii ay ku yaalaan iyo afkii iyo wadnuhu sida u shaqeeyo yani jirkan oo dhan wada shaqeeya sharciguna waa saas oo kale midba meel ayuu qaabilsan yahay qayb waa caqiido qayb waa akhlaaq qayb waa cibaadaad qayb waa mucaamalaad kulligood marka inay saa u wada socdaan oo sharciga ummadan ay ku soconayso qaanuunka yani Soomaalida oo loo sameeynayo oo ah yani sideen arrimaheena hoose aan u habaysanaa si ahna in ay habkaas u wada socdaan oo wixii wax dhameystiraya ay noqdaan oo wixii aayada quraanka si toos ah loogu sheegayna sideeda loo qaato wixii aayadu ayna xawisho ay tiraahdo saas yeelana sidii ay aayadu inoo xawishay ee saas yeela ay tiri inagu markaas ijtihaadkeena intaan ka heshiina aan u samaysanayno in yani ayaa loo baahan yahay dadka waxaa jira fakasho xoog leh oo qofkii inuu sharciga ka fakado uu rabo wixii ku qaban lahaa marka oo ku celcelin lahaa ayaa la laayahay laakiin hadii marka sharcigii oo wuxuu qofku rumaysnaa ana loo yani diyaariyo habka loogu dhaqaayna loo sheego oo leeyahay waa sidaas marka saas ugu leeyahayna waa sharcigii ilaahay iyo shariicada islaamka ayaa noocaas ah oo saa u yeelo marka dambe qofku wuxuu noqonayaa qof edeb iyo leh suluugiisa uu toosaya ummadda saas ayana lagu hagaajin karaa marka taariikh ahaana soo yani wixii aan soo marnay iyo duruufihii ayaan wali sal dhiganin oo yani ummaddu waqti ay burbursanayd iyo waqti qawaaniinteeda meel kale laga hagaayay oo aan shariicada waafaqsanayn intaas ayaan u dhaxaynay marka geedigu uu socdaa wali lama sal dhiganin laakiin wacyigelintan aan sameeynin waxay tahay qof walba inuu yani wixii asaga yani uu dareemayo meeshii uu ku heli lahaa in lagu wada qanco inay tahay in ummaddu jiritaan ay leedahay ummad aan ismaamulaynin oo aan kala dambaynaynin oo madax iyo minja aan kala lahayn noloshooda uma toosto adduun iyo aakhirana ay ku khasaarayaan marka adduun iyo aakhiraba diinteena waxayna faraysaa si loo liibaano in yani dadku ay hoggaansamaan oo ay u hoggaansamaan sharciga inay u hoggaansamaan oo qofku haddii uu wax tabanayo isaga gacantiisa uusan sharciga ku qaadanin oo taasoo kale maxaa la fawda la yidhahdaa haddii qofku maalan uu qof ama caayo ama uu qof wax ka hadleeyo waxaa la rabaa inuu helayo meel uu uga sheegto ama uga dacwoodo oo qofkan xumaatada sameeyey si yani jiritaan ah qofkii u qabta laakiin haddii dadka la isku wada fasaxo oo qof walba kii soo fiiriyaba uu dharbaxa ku dhufta kan kalena uu ul ku dhufta kan kalena fawdo iyo waxay noqonaysaa yani sharci darro iyo dadkii oo wada yani fitan aan ka baxaynin si marka fitanka iyo dhibaatooyinka looga baxo yani dadku inay ku kalsoonaadaan qofku markay wax ka hadlaysan yihiin inuu si sharci ah oo wixii ka maqan uu raadsado ee uusan qof walba meesha uu taagan yahay uusan uga dhaqaaqin siduu doonana uusan u yeerin haddii saas la yeelo waxaa dhacaysa marka noloshii inay fawdo iyo dhib ay noqonayso diinteena islaamkuna waa diin nidaamsan oo fawdada ma ogolo oo waad aragteen salaada markii la tukanayo safka hala toosiyo waxaa loo leeyahay waa nidaam la ilaalinaya imaamka hala raaco waxaa loo leeyahay nidaam la ilaalinaya qofka imaamka oo rukuucsan ama sujuudsan madaxiisa kor soo qaadaya waa tiiriir muusan ka cabsanaynin madaxiisa in dameer loo bedelo oo laga dhigo maxaa yeelay wuxuu haleeyay systemkii iyo nidaamkii iyo dadkii wada socday ayuu kala dhantaalaya marka diinna waa sana diin sidaas ah oo nidaamka saa ugu dadaalaysa in haddana fawdo ahno oo sharci darro lagu socdo qofku uusan sharciga celinaynin yani waa burbur akhlaaqeed oo dadka ku dhacay oo loo baahan yahay in dib dadka loogu soo celiyo in qofku akhlaaq yeesho oo yani uu isxakameeyo oo wixii asaga uu rabo inuu qaato yani uu ku qaato si sharci ah saasna ay noqoto ummad shareecadeeda iyo systemka iyo nidaamkeeda yani wada leh inay soo baxdo ayaa muhiim ah waa tahay dhegeystayaasha weli fursad ayaan siinaynaa kuwa doonaya in markaa barnaamijka ay ka qayb galaan
iyagoo soo wacaya eber 6 hal 9 62 24 ayaad barnaamijka uga qayb geli kartaan. wixii su-aal ah ama aragti ah waad nala wadaagi kartaan. sheekh cabdixayi, haddii aan ku laabto, bulshada ama dadweynuhu kaalin intee leg ayay ku leeyihiin ilaalinta iyo hirgelinta qodobada qaanuuneed ee markaa aan khilaafsanayn diinta ee lagu heshiiyo? bulshada waxay ku leeyihiin dowr aad iyo aad muhiim u ah, maxaa yeelay waxa la xukumaayo waa bulshada. marka waxaa fiican qofku intii qof asaga oo kale ah uu tilmaami lahaa oo u dhihi lahaa maalan jidka markaad marayso qashin ha ku tuurin, haddaad ku tuurto waa lagu ganaaxayaa, inuusan ka sugin in la ganaaxo, inuusan ka sugin in yacni loo tilmaamo, asaga ay ka dhaadhacdo. marka bulshadu haddii ay yani u abuurmo dhaqan ah ilaalinta nidaamka, arrintu way sahlananaysaa. wax hadda mushkilada inagu hayana waxay tahay bulshadii oo aan u abaabulnayn ama habdhaqan uusan u ahayn qof walba inuu ilaaliyo. hadda tusaale ahaan maalan roobku markuu do-o biyo ayaa maalan laamigii soo socda, biyaha laamiga socda xaafadaha u dhow waxay sameynayaan wixii qashin ah oo guriga ugu jiray oo baca iyo wax ku jira intay soo qaadaan ayay biyihii raacinayaan. marka qofkaas haddii yani faydhowrka wasaaradda caafimaadka iyo dadka caafimaad ka shaqeeya iyo booliska nidaamka ilaaliya sida ma ku saxsan tahay mise way ku khaldan tahay haddii la weydiiyo, arrintan way khaldan tahay. qofkan sameynaya naftirkiisu inay khaldan tahay wuu ogyahay, laakiin maadaama uuna haysanin cid ku kontaroosha, waxaa fafakasho waxaa bilaabatay marka ani maxaa iga galay, markaasa qashinkii waxaa lagu soo daadinaya laamigii. maxay laamigi cid iska leh ma jirto, gurigiisuu soo xaaqanayaa, soo nadiifsanayaa, meeshii dadka ka dhexaysay ayuu qashinkii uu soo dhigayaa. marka bulshadu inay dib intay isugu noqoto guri walba qaybta isaga kaga aadan hirgelinta dadku waxay ku heshiiyeen iyo ilaalintooda inuu ilaaliyo, una niyeysto inay tahay cibaado, inuu u arko inay tahay ilbaxnimo. ummadaha kale maalan horumarsan oo jidadkooda ay nadiifta yihiin ama saas ay yihiin, waa dad bini aadam ah oo ku qancay qof walba inuu wadankiisa ilaaliyo oo asaga xaggiisa uusan waxba uga imaanin. marka bulshada door muhiima ayay ku leeyihiin inta aan la gaarin in lagu riqaabeeyo ama lagu ilaaliyo ama cid ku kontarooshaay aan la helin, in dadku ayagu isku kontaroolaan ayaa laga maarmaana. saas daraaddeed sayyidina cumar wuxuu dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, idinku isxisaabiya inta aan laydin xisaabinin ka hor. marka qofku inuu suga ma aha inta asaga laga qabto oo la yidhaahdo sharcigii baad jebisay, waa inuu asaga yidhaahdo sharciga ha jebinin. qadadkay dhegeystaan. halo, assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عاد هملو soo dhowow. وعنده هاي أحمد الهادي وداديها برنامج كأه في داعية ما تمرتوه كأه برنامج كأه الداعية الشيخ عبد الحي قادن وإذن سلامة يا قلب ونساعدين ليه galab la mid ah. magacay deegaanka? مقعة تنكورة في أحمد الهادي هو ياسين أحمد بوليد أخطى حكة إلى عاد هملو إن جوا حافظة ولحوي عيارك على الخلو. waa tahay, soo dhowow ayaan ku leenahay. su-aal iyo ra'yi haddaad qabtay nala wadaag. عادي هذا إنك عمد قلنا إذا وأنا دوهي مرلوات داعية وعن ويدينها له سؤال ما دام هو كده واديي أي قانون خلاف القرآن الكريم إنه يهي باطل هذا بدن وطاقاتي جزاه الله خير الجزاء. سؤال قد عن ويدينها وحتى هذا مجال عن دغنا مقدشو جامعة وحاضره لو برتو قانون كم واحد لو يخان لو كان ابنها هنا واحد لبرايو ولو قف بن آدم لو سميه ما كنت أشهر ويدينها وحتى ما دام قانون إلهي وجرو والدستور نبي نقول صلى الله عليه وسلم ما إن تمسكتم لن تضلوا من بعده ما لا يمر منيا إن قوانين وضعها بنشد سوفر اللبرة ودين تودي سوق اللبرة مسيح وخصب إن على قوانين الوضعية لبرة سؤالك وتاسوا ما لا يمر ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وليه حتى كان كتاب الله وسنتي ما ضمن دونتان ما لا يمر مع سؤال أنا عندك لبرة سؤال شباب واحد هاي قفكي قانون وضعه
dadka bara gaar ahaan jaamacadaha oo kale waxaan maqalnaa kuliyatul qaanuun hebel mala dhihi karaa ihaanatu diin ayuu qofkaas galay maadaama qaanuun sharci ah oo samaawi ah oo ilaahay subxaana watacaala samada lagu soo dejiyey maadaama uu ku qanci waayo qofka dadka hadda baraya mala dhihi karaa diintii ayay ihaano ku sameeyeen jariimo weyn ayay galeen mala dhihi karaa mise waa khayr kala loo hayaan laba su-aal su-aalo badan waa ii dhex guuxayaan laakiin waxaan jecelahay dad kale ay ka dambeeyeen jaaniska alasay cabdilhaadiyo yaasi waa mahadsan tahay su-aashaadan oo aad iyo aad ay muhiim u tahay oo waxyaabo u baahan dadka in loo faahfaahiyo sidaan horey xalqada bilowgeeda ugu sheegnay innaga muslimaan nahay shareecada islaamka ayaa inoo ah diin ayada ayaan isku dhaqaynaa ayaday tahay waajib in la raaco kuliyaadkan maalan shareeca wal qaanuun dhigaaya qaanuunka ay dhigayaan dabcan waad hadda la tilmaamayo oo aan leenahay qaanuun khilaafsan shareecada waddankeenna laguma dhaqi karo maxaa yeele muslim ayaan nahay waxaa jira marka qawaaniin oo ku saabsan maalan waxa la yihahdo ijraa'aat maalan waxaa lagu leeyahay maalan al-ijraa'aat almadaniya ijraa'aat waxaa laga wadaa waa tallaabooyin qaanuun ijraa'aadkaas oo madaniga ah waxaa ka mid a maalan markii la qaadayo maxkamad markii la qaadayo process ama tallaabooyin la marayo ayaa jira oo le maalan qaadigu halkaasuu fadhiisanayaa markhaatiyaashu halkaasay istaagayaan labada qof ee kala dacwoonaysa halkaas warka waxaa qaadanaya qofkaas ayaa u jawaabaya yacni ijraa'aadka noocaas oo kale ah oo yacni hab maamulka hawsha socoshadeeda ah habkaas oo kale ayaa la barayaa midda kale haddii international law la baro tusaaleaan maalan oo qaanuunka hawada sare qaanuunka badaha hadda maalan waxaa ka mid a maalan badda ka soo qaadoo kale waxaa lagu heshiiyey oo ah in waxaa jirta maalan baddu dadkay ka dhexaysaa oo waa biyihii lahaa shurakaa marka haddana waxaa lagu heshiiyey oo ah waddan walba oo badda asaga dhinaceeda ka degan ilaa intee ayuu biyahaasi ka leeyahay almiyaha aliqliimiya la yidhaahdaa marka wuxuu ka leeyahay maalan masaafo intaas la eg intaas wixii ka dambeeya waxay noqonayaan biyaha caalamiga ayaa la yidhaahdaa marka maraakiibta maalan haddii ay dembi ay ku galaan dowladdii intii iyadoo ay lahayd ee biyaheeda ah habkii loo maxkamadayn lahaa ayaa la sheegayaa haddii dembi ay ku galaan meesha oo biyaha caalamiga la yidhahdo oo ka baxsan meelaha dowladuhu ay leeyihiin oo ah meel masaafo fog oo biyahaas badweynta ah oo maraakiibtu ay maraan oo la yidhaahdo waa waxyaabo yacni noocaas oo kale ah marka midda kale dadka caalamka joogaayay kulligood wada muslimiin ma ah qaarna waa muslimiin qaarna waa dad aan muslimiin ahayn dadka muslimiinta ah sharcigooda waa shareecada islaamka waa la bartay waa middaas kuwan kale si aad ula dhaqanto sharciga ayaga ay ku socdaan ee islaamka aan ahayn in aad barato si aad isaga celiso oo sidii maalan luqadaha oo kale marka hadda laga hadlayo languageka waxa markii laga hadlaayo yacni qolo luqadeed haddii aad barato dhibkeeda iyo sharteeda ayaad ka magangelaysaa qoladaas haddaad marka maalan sharciyadooda aad barato yacni kuma khiyaani karaan waad iska baranaysa international lowga marka waxyaabaha noocaas oo kale ah saasaa loo baranaya haddii marka adduunka waxyaabaha ka socda dhahda ma baranayno hadhow cid kaa difaacda ma helaysid macnaa dhibaato ayaa maalan lagugu samaynaya marka inaad lahaato dad yacni aad sharciga yaqaana oo hadhow kaa difaaco oo khaladaadka ay leeyihiin yacni looyaro waaweyn oo caalami inay kuu soo baxaan waa laga maarmaan marka midka la diidayo wuxuu yahay oo qofka yacni inuu ku dhaqmo aan la ogolayn waa midka shareecada islaamka khilaafsan laakiin midkan maalan shareecada islaamka yacni aan khilaafsanayn oo hadda tallaabooyinka aan sheegayno oo kale ah waadi maalan markii rabo qof in dacwo loo geeyo waxaa leeyahy maalan saacaddaas iyo saacaddaas qof dacwo looma geyn karo tusaale maalan qof habeennimo maalan maqribka haddii mar la gaaro qof maalan dacwo la rabo in loo geeyo in habeenkii intii loo baxa la yidhahdo beri maxkamadda laga raba caawa hurdada laga qaso oo uu seexan waayo taasi lama ogolo oo waxaa la diidaya qofkii inuu xanuunsan yahay dhici karta inuu walwalaa dhici karta maalin cad oo waxaa la rabaa caadi arrintu ay tahay oo u tegi kara meeshii marka waxyaabaha noocaas oo kale oo tallaabooyinka ama ijraa'aadka ama habka shaqadu ay u socoto waxyaabaha ku saabsan tallaabooyinkaas in la bartaay wax dhiba ma ay jirto midkan khilaafsan barashadiisana seed uga leexan haddaadan baranin marka oo qodobkaani shareecada ayuu khilaafsan yahay ayaad dhehe haddii marka aadan qodobkiiba aandan arkin inuu shareecada khilaafsan yahay ma garan kartid tusaalahaan wadamada muslima qaybana waxay ku qeexeen zina waxaa la yidhaahdaa laba qof oon isqabin
haddii gurigii xaaska gaba islaanta ay lahayd yacni dhexdiisa lagu sameeyo falkaas sharci darrada ah ayaa zina ah. waxay xadideen marka zinadu inay un tahay makaan. haddii laakiin guriga aan lagu samaynin ee hotel lala aado, haddii taas loo fiiriyo ayaga agtooda zina kama noqonayso. waxay leeyihin halkee bay ka dhacday zinadu? ma gurigii gabadha lagu qabay baa dhexdeeda looga zinaysay, mise meel banaanka ka ah? meel banaanka ka ah markaas waxaa leeyahay marka taasi zina ma ah. taas markaad aragtid waxaad fahmaysaa tacriifu zina oo shareecada saad u taqaanay ahayd laba qof oon isqabin oo isu tagtay sharci darrada isugu tagtay ayaa zina ah, ayadoo aan loo fiirinaynin makaanka ma gurigay ka dhacday mise banaanka ka dhacday aan loo fiirinaya itisaalka ama xiriirka inuu dhacay ay zinadii ku taam noqonayso. labadii markay kala duwan yihiin. waxaa ka mid a cuquubada oo maalan qofkii zinada sameeya lagu samaynayo. meelaha qaarkood waxay leeyihin maalan saddex biloodaa la xiraayaa, ganaax intaa agna waa laga qaadaya. qaanuunka noocaas oo kale ah markaad aragtid waxaad fahmaysaa inuu shareecadii uu khilaafsan yahay, dadkana waad uga digi waad noogu sheegaysaa. marka qofka muslimka ah adduunkan waxaa ka socdaay yacni intuu indhihiisa furo waxaa la rabaa inuu wixii uu arko wixii diintiisa waafaqsan ee xikmadna ah oo bini aadamku tallaabooyin oo horey ugu faa'iiday ay tahay oo cadaalad uu ku xaqiijisan uu ka qaato. wixii diintiisa khilaafsan wax cadaalad uu xaqiijinaya aysan jirinna inuu yidhaahdo kan anigu kuma jiro, shaqana kuma lihi. qawaaniinta caalamiga ah oo maalan wax la soo saarana kuma qasbanid ilaa kulli inaad wada qaadato. wixii adiga diintaada ayna ogolayn ama dhaqankaaga ka soo horjeeda waxaa lagu ogolyahay waxay taxafud inaad ka muujisid oo tirahda ani kan ima khuseeyo, waana lagu cudurdaaraya kuma khuseeyo, ee wixii adigu aad saxiixido ama aad ogolaato umbaa lagu qaadaya. marka waxyaaba noocaas oo kale habnooleedka caalamka u nool yahay inaad iska ogaatid meeshay wax u socdaan way fiican tahay, dhibna male. laakiin in qofkii intuu rumeeyo waxaan inay wax fiican yihiin ama in dadkii muslimka aha lagu qasbo ama wax shareecadooda khilaafsan lagu xukumo, taas waa midda la diidan yahay oo yacni aan la ogolayn. kuliyaadka sharciga iyo qaanuunkana waxay u taagan yihiin bal soo fiiriya ogaada waa wax ku saabsan in wixii sax ah ee ummaddan caqiidadooda aan khilaafayninna laga faa'iidaysto, wixii khalad ah oo ummaddan caqiidadooda iyo dhaqankooda khilaafayana in la iska daayo oo la yidhahdo waxaas annaga shaqo kuma lihin. aqoonteedaas ayaa muhiima. marka jahliga unbaa aada u dhibaato badan. dadku hadday wax bartaan wixii xunna ayagaa ka leexanaya, wixii san ee fiicanna ayaga ayaa qaadanaya. wuxuu kusoo gabagabeynayay dadka dhiga qaanuunka bal ka waran wax dhiba miyay u geysanayaan uu leeyahay ama gaf ah diintii. hadda aan leenahay qofka yacni wuxuu u dhigaayo ama u baraayo waa asagoo og waxaan ay siday kale yihiin inuu yacni waxaa jira waxa la yidhahda fiqhi lmuqaaran oo maalan shareecada dhexdeeda ayaa jirta oo ah madaahibtii oo la isbarbar dhigo. xaggan kale qaanuunka waxaa jira iyaga naftooda madaaris iyo waxay kala leeyihiin iyo qaybo kala duwan. marka qofkan dhigaaya yacni isagoo uma dhigaayo inuu yidhaahdo wuu fiican yahay ee aan isku xukunno oo saan aan yeelno, ee wuxuu leeyahay wixii saxsan oo ah yacni ummad meel isugu imaatay inay nidaam lahaato waa laga maarmaan. hadda maalan shirkadahan ganacsiga ka soo qaad, shirkad kasta waxay leedahay waxa loo yaqaano annidaam alasaasi ama xeer hoosaadka ay shirkadani ku socoto oo ah ninka guddoomiyaha ah shaqadiisu maxay tahay, guddoomiye ku-xigeenku muxuu qabtaa, kan xisaabaadka muxuu ka shaqeeyaa, kan shaqaalaha qaabilsan shaqadiisu maxay tahay, shaqada goormaa la soo galaa, goormaa laga baxaa. yacni waxyaabaha noocaas oo kale ah oo maamuleedkaas ah ayaa dhib male. taas waa midda la baraayo. ee qof hadduu yidhi maalan yacni wanaag u arka oo dhahay maalan shareecadiina saan ay leedahay, qaanuunkii kale ee khilaafsana waa saas, kanaana ila fiican aniga waxaas taas iyada ah ma jirto. dadka dhigana waa dad yacni aqoon-yahano ah oo yaqaana shareecadii oo yaqaana qawaaniintan waxay ku xun yihiin iyo waxay ku fiican yihiinna dadka u kala saari kara si dadku ay isaga ogaadaan wixii khaldanna ay uga dheeraadaanna ayay u baraayaan. marka qofkan asagay ku xiran tahay habka uu cardinayo ama habka usoo dhigaayo iyo waxa uu rumaysan yahay iyo sida uu rumaysan yahay. marka dadka muslimka ah waxa ay rumaysan yihiin ee loo dhigaayo waa shareecada islaamka, waana sidaas. waxyaabaha kale ee ummadaha kale ay leeyihiinna waxa loo baranayo waxay tahay in yacni wixii sax ahna lagula socdo, wixii khalad ahna naga jooga, annaga diinteennu saas ma ogolo, dhaqankeenna saas ma ogolo in la yidhaahdo. marka ummaduhu inay is ixtiraamaan oo qolo walba lagu ixtiraamo muctaqadkeeda oo yacni aan la faragelinin oo islaamkaas yacni sidiisa u ahaado ayaa loo baahan yahay. marka taasna waxay ku imaanaysaa waxbarashadaas iyo ogaanshaha. marka qaanuun oo dhanna ma wada xumo oo yacni kuwa xunna way jiraan, kuwa aan xumayn oo ah habkaas iyo tallaabooyinka hadda aan sheegaynay oo aan waxba diinta u dhimaynin oo habka ama shaqada loo qorto ah ama habka maxay ahayday shaqooyinka loo soo gala ah oo waxyaabahaas maamuleedka ah oo cid walba ay samayso oo maaha dad un aan diinta islaamka ku fiicnayn oo gaala un ma sameeyaane. shirkadan ganacsiga ah ama ururkan dhallinyarada ah ee xaafadda jooga
ayaa urur kasta wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo xeer hoosaadka ay isku maamulayaan say lacag isaga qaadaan say xaflad u qabsadaan say u kala dambeeyaan marka qaanuunka lagu sheegaya dadka bare waxay tahay habkaasi dadku ay u nidaamsan lahaayeen tandiimkooda aan qaadano wixii saas khilaafsanna shaqo kuma lihine aan iska diidno qaybaha dambe ayaan isla joognaa qadkan. halo assalaamu calaykum. soo dhawo magaca deegaanka. mahad su-aalahaaga sii gudagal waqtiga ayaan hayaa. waxaan weydiinaa qaynuun qaldan haddii lagu dhaqmaayo oo qaynuun qaldan sida lagu dhaqmaayo oo culimadii ay joogto culimada ay shibka dhahaan xaq ilaahay markay la tago ilaahay ma weydi doonaa ma dhigi doonaa qaynuunka qaldan maxaa idinka ugu hadli wayseen ama nimanka ana ili qaataan ama yana ili qaadan maxaa ilaahay ma dhigi doonaa maxaa sheeg waysan ilaahay ma qabti doonaa culimadaas. aada waa mahadsantahay mahad waa mahadsantahay dabcan wax kasta oo xun oo la sameynaayo culimo iyo caamaba yacni inay celiyaan oy ka joog dhahaan waa waajib saas daraaddeed diinteennu waxay qabtaa arrin la yidhahdo alamru bilmacruuf wanahyi can munkar waa sida tilmaamaysay ama ha la qaato ama yaan la qaadanin horta in la sheego waana midda hadda aan sheegayno ku celcelinayno leenahay waddan muslim ah sharcigiisu waa shareecada islaamka wixii khilaafsanna oyna diintu qabinna lama ogolo qofkii marka asaga la yimaada waa loo sheegaya horena waa loogu sheegi jiray haddana waa loo sheegayaa cid lagala gabanaya ma jirto culimadana aad ay waxay muhiimadda u saareen oo ah alamru bilmacruuf wanahyi can munkar sida nolosha ummadda ay ugu tahay in loola jeedo ummaddan si ay sharaf iyo qiimo ugu yeelaato dhammaan dadka iyagoo iskaashanaya oo culimmada ay ugu horeeyaan wixii xumaato ah oo ay arkaan oo bulshada lagu dhex faafinayo ama bulshada lagu dhex wadaayo ha sheegeen oo ha ka hadleen oo ha yidhahdeen arrintaasi way xun tahay shareecaday khilaafsan tahay sidaas ha yidhaahdeen hadday ka aamusaan haddii aad tilmaamaysay yani waa dembi in laga aamuso wax xumaata ah ayadoo la fiirinaya dabcan duruufta marka qaarkood waxaa dhici karta qofkii asagoo wixii ka xun oo aan ogolayn haddana duruufo jira daraadood inuu marka qaarkood isaga aamuso way dhici kartaa oo yani waxyaabaha ku hareeraysan iyo duruufta uu ku jira daraaddeed ay tahay laakiin in raalli laga noqdo oo wax xun yani la ogolaado taas ayaa la diidayaa marka waa midda aan u soconno oo ay tahay ummadda oo dhan iyagoo wada jira wixii shareecadeenna khilaafsan inagoo wada jirna yacni qofna aynan ka yeelin oon dhahno taa shareecaday khilaafsan tahay ma yeelayno wixii fiican oo ummaddan horumarkeeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda waafaqsan oo horey u soconaayana in la yidhaahdo waan ogolnahay oo ummaddii markaa ummad isdhiirigelisa oo wanaaggana isfarta xumaatadana iska celisa inaynu noqoto haddii laakiin laysu aamuso oo qofku wuxuu doono iska sameeyo tii xadiidku baa nagu dhacaysa halakuu wahalakuu jamiican waa lasla halaagsamaya haddii xumaatada layska qabtana oo dadku ay dhahaan waxaan ma fiicna naga wada daayana najow jamiican waa la wada badbaadaya marka waa in aynu ra'yul caam guud aynu samayno ah ummadeenna bulshadeen waa bulsho muslim ah waxay nabad iyo qabow ay ku helaysaa sharciga islaamka in ummaddan lagu hogaamiyo wixii taa ka duwanna dadku ay ku halaagsamayaan ha laga joogo. aad buu mahadsan yahay sheekh cabdixay sheekh aadam barnaamijka ayuu marti inoogu ahaa intaa ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno dhegeystayaashii qadad soo galay iyo kuwii la socday way mahadsan yihiin tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax